kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Berbera ayaa maanta waxay sameeyeen isu soo bax ay ku taageerayaan qadiyadda Soomaaliland iyo doodii baarlamaanka Ingiriiska ka dhacday ee lagu taageerayay madax banaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kumanaankani ka mid ah shacabka magaalada Berbera ayaa waxay siteen calanka Soomaaliland iyo boodhadh ay ku xardhan yihiin erayo lagu taageerayo qarannimada Soomaaliland. Shaqaale weynaha laamaha dawladda, ciidanka nabadgelyada iyo ardayda dugsiyada ayaa iyaguna waxay ka qayb qaadanayeen banaanbaxani. Waxa shacabka duwan munaasabadani lagu taageerayo qarannimada Soomaaliland kala soo qayb galay maamulka gobolka Saaxil ka degmada Berbera, maareeyaha dekedaha Soomaaliland, maareeyaha wakaalada biyaha, haamaha kaydka shidaalka iyo asxaabta qaranka. waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay odayaasha, haweenka iyo madaxda xisbiyada qaranka ee gobolka Saaxil, waxayna ka warrameen isu soo baxani. waxaan leeyahay war halkaynu maanta taaganahay haraan uga marro aan ictiraafkeena ilaahay bayna ictiraafkeena aan xijisanno aan isku duubnaanno indhihiinnu ay qabtaan shisheeyaha iyo cadowga hareeraha idinka taagan ay indhihiinnu qabtaan ayaan dayarta idiin soo jeedinayaa. markaannu qadiyadda leenahay eenu doonayna qaranka Soomaaliland jiridiisa iyo mowqifkiisa mucaarad iyo muxaafid ma kale raggayagu koob shaaxay meel ku wada cabbaan, raggayagu qarankay u wada dhinteen. waxa weeye hooyo inankeedii weyday iyo mid ninkeedii weyday iyo mid waxa ku dhuwisiisaysa ayuu farmaajo soo kiciyaa. xildhibaanada Ingiriiskana runtii aad baan u bogaadinaynaa. waa imika waa loo soo jeestay Soomaaliya, waa lagu xiiqay Somaliland baa loo soo jeestay. Somaliland meel wanaagsan ay maraysaa, intaasoo madaxweynaha iska bedelay, intaasoo doorasho dhacday. qadiyadeenna iyo dhawaaqa ka soo yeedhay baarlamaanka Ingiriiska inaynu maanta ku muujinno ayaynu maanta isugu soo baxnay. waxaynu bacadka u taagannahay inaynu qadiyadeenna muujinno. Soomaaliya ha noolaato, ha jirto, 100 sano hadday gaadhayso waynu ka midhaynaa midnimadeena Soomaaliland iyo ictiraaf aragteeda. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Saaxil, maayirka degmada Berbera, maareeyaha dekedaha Soomaaliland, maareeyaha wakaalada biyaha Berbera. waxaana shacabkani kala duwan ay uga mahadnaqeen isu soo baxani ballaadhan ay sameeyeen, iyagoo fariinna u diray beesha caalamka. bulshooyinka iyo ka soo qaybgalayaasha iyo caalamkaba ugu baaqaya Soomaaliland maanta waxay taagan tahay meel aanay ka soo noqonaynin, halkaa inay sare uga sii socoto mayo soo noqon mayso. waxaan u mahadnaqayaa dawladda Ingiriiska. dawladda xamar waxaan leeyahay oo istaagu waa naga go'an yahay haddaan Soomaaliland nahay. Allahu akbar. qolada Soomaaliya waxaan u sheegaynaa inaanay ku lugayn cid kastoo Soomaaliland la dagaalantaa waxay la dagaalamaysaa calanka tawxiidka laa ilaaha illa Allah, cid jin kartaana ma jirto. waxaan mar labaad hambalyo u dirayaa dhammaan baarlamaanka Ingiriiska ee ka qayb qaatay qadiyadda Soomaaliland. waxaan u mahadnaqo bulshada reer Berbera dhammaan sagiir oo kabiir maanta u soo banbaxay muujiyay qadiyadooda iyo dareenkooda. maanta innaga Soomaaliya waxba inagama dhexeeyaan. inagu waxaan leenahay xuduud qayaxan oo ay ku teedsan yihiin ciidamada kala duwan, hadday yihiin militariga, hadday yihiin booliiska iyo hadday yihiin ciidamada ilaalada xeebaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan leenahay calan uu ku xadhan yahay laa ilaaha illa Allah Muhammadur Rasuulullah. waxaan leenahay baasaboor, waxaan leenahay lacag. maanta waxaynu halkan isugu nimi inaynu muujinno ama aynu soo bandhigno dareenkeenna ku saabsan mahadnaqa aynu u celinayno golihii baarlamaanka dawladda Ingiriiska ee qadiyaddeenna lagu soo bandhigay maalmihii dhoweyd ee la soo dhaafay. waxaynu ognahay qadiyaddan inaynu u soo marray burbur iyo dhimasho iyo qax iyo inamo badan oo naftooda ku waayay iyo kuwo maati iyo waayeel iyo waxgarad intaba lahaa oo gacanta loola tegay. Cabdirasaaq Qaasin, telefishinka Saab, magaalada Berbera.